الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باب ما نهي عنه من البيوع. هذا متكان باب ما شيء باب كوي shaygaasoo nuhiya la nahiyey canhu shayga xaggiisa kaasoo min albuyuuci beecyaasha ka mid ah. baabkan sheikhu wuxuu uga hadli doonaa oo uu isugu keenayaa xadiid faa'iideynaysaa buyuucda qaarkeed inaan la ogoleyn. ilaa 10 xadiidaan ku arki doonaa baabkan insha allahu tacaala. kitaabulbayci ayaan guud ahaan ku jirnaa. waxyaabaha laga rabo beecu markuu asaxayo ayuu soo hormariyey iyo khiyaarka iyo waxyaabahaas. haddana manhiyaadkii uu ka hadlayaa albuyuuc almanhiyu canha. xadiidka koobaad can abi saciidin. abi saciid xaggiisa waxaa laga wariyay alkhudriyi ee awowgii khudra loo nisbeeyey radia allaahu canhu ana rasuula allahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu nahiyey oo uu reebay can ilmunaabadati isu tuuridii. wahiya munaabadaduna darxulrajuli ninkii tuuridiisa weeye thawbahu maradiisa wuxuu u tuurayaa bilbayci bisababilbayci gaditaanka sababka ila rajuli ninkii kale intii ka ah qabla an yuqalliba intuusan gedgedin ninka kale hu marada ow yandura ama uusan fiirin ninka kale ilayhi ila thawbi marada intii ka ah. wanahaa wuxuu nahiyey nabigu sala allahu calayhi wasalama can ilmulaamasati taabsashadii ayuu nahiyey. walmulaamasatu taabsashaduna waxa weeye lamsu thawbi maradii uu qofku u taabto laa yanduru xaal uusan fiirinaynin ilayhi ila thawbi marada intii ka ah. halkan xadiidkani wuxuu kulminayaa laba beec oo labaduba manhi ah oo aan la ogolayn in wax lagu kala gato. qeybta koobaad munaabada la yiraahdaa. munaabada xadiidka laftiisa lagu dhex fasiray darxu rajuli thawbahu bilbayci ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yandura ilayhi. shaygu markii uu yahay shay mabiica oo la gadayo waxaa la rabaa qofka gadanaya oo mushtariga ahi inuu inta gedgediyo fiirfiiriyo bal inuu cuyuub leeyahay iyo inuusan lahayn, ama inuuba fiiriyo fiiro guud haddii ay ku filan tahay uu fiirsho. marka attaqliib aw innadar labadaasaa laga rabay qofka wax iibsanaya. marka labadaas midkoodna la fiirin maayo. maradiiba suuqa keena qofku iyo qofka kale inta usoo tuuro wuxuu leeyahay sidaasuu kaaga gadan yahay. darxu rajuli thawbahu bilbayci ila rajuli yacni qofkii kale uu usoo tuurayaa marada qabla an yuqallibahu aw yandura ilayhi. marka beecaas ciladiisu waxay noqonaysaa cadamu taqliibi wa cadamu nadar, inuusan gedgedin uusanna fiirin. oo shaygan hadda laga gadayay uu majhuul ba yahay markii dhinacaas laga fiiriyo. waa munaabadada isu tuuridda weeye. beeca labaadna mulaamasada weeye. almulaamasa xadiidku wuxuu ku fasiray lamsu thawbi laa yanduru ilayhi. ciladiisu inay tahay cadamu nadar. maradiyuu taabanayaa. markuu marada taabto ayuu qofkii wuxuu ku leeyahay marada mar haddaad taabatay waa kaa gadan tahay, intaasayna kaaga gadan tahay. marka laba tafsiir ayay mulaamasadu leedahay. saddexna waaba laga dhigaa. tafsiirka koobaad waxa weeye an yajcala lamsa baycan, taabashadiiya beec laga dhigayaa. oo mathal wuxuu leeyahay idaa lamasta thawbi maradayda haddaad taabatid suuqa ii taalla fahuwa thawbkii mabiicun minka, adiga mid lagaa gaday weeye, bikada wakada qiimahaasaana lagaaga gaday. beecaasi waa baadil maxaa yeelay siiqadii loogu talagalay oo loo dejiyey dhinaca sharciga beeca oo qabuulkiiyo iijaabka laheyd. bictuka haada bikada, sidaasaan kaaga gaday iijaabkii ahaa iyo qabiltu
ama muxuu ahay wixii lamid ah oo qabuulkii ah yaa meesha ka baxaya. ciladu sidaas weeye markii sidaas lagu fasiro. waxaa kaloo lagu fasiraa an yabiicahu calaa annahu idaa lamasa thawba faqad wajaba albaycu wanqadaca alkhiyaar. nafyu shardi lkhiyaarka meesha nafyu lkhiyaarka horey waxaan u soo marnay labada wax kala gadanaysaah khiyaarulmajlis la yidhaahdo intay leeyihiin maa lam yatafaraqaa can makaanihimaa, meeshii caqdigu ka dhacay intaysan ku kala tegin inay leeyihiin khiyaar la yidhaha khiyaarulmajlis. marka khiyaarulmajliskii inuusan meesha soo gelaynin yo uga gadaya oo wuxuu leeyahay maradaas haddaad taabatid khiyaarulmajlis ma lihid. taasina waa tafsiir kale oo isaguna shardigaas faasidka oo uu ku xiray ayaa beeca fasaadinaya. imaamu shaafici tafsiir saddexaad oo ku fasiraa mulaamasada, wuxuu leeyahay bian ya'tiya bithawbin madwiyin, mara duuban oo aan gudaheeda laga warqabin uu qofku suuqa keenaya, ow fii dulmatin ama meel mugdiya mara taalla. markaasuu waxaa markaas taabanaya qofkii rabay inuu waxgato ayaa taabanaya. taabashadaas markuu taabto oo saaxiibul thawb wuxuu leeyahay bictuka kada bishardi an yaquuma lamsuka maqaama nadar, waxaan kaaga gaday maradan duuduuban ama meesha mugdiga taalla, intaasaan kaa siiyey, waxaase shardiya taabashada aad taabatahay inay booskii fiiradii gelayso oo iyaduna de shardi faasida ah. saddexdaas qaab yaa lagu fasiraa mulaamasada, laakiin ayimada islaamku way isku raacsan yihiin si kastoy u fasiraanba beecaas inaan la ogolayn. xadiidka lafdigiisa markaad usoo laabatid labadoodaba wuxuu ka dhigayaa sababka cadamu taqliib wa cadamu nadari ila almabiic. can abi saciidin abi saciid xaggiisa waxaa laga weriye alkhudriy radia allaahu canhu ana rasuula allahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu nahiyey can ilmunaabadati isu tuuridii, wahya munaabadaduna darxu rajuli, ninkii tuuridiisa weeye thawbahu maradiisii suuqa uu keenaybu wuxuu u tuurayaa bilbayci bisababi lbayci beec sababkii ila rajuli ninka kale, qabla an yuqalliba intuusan ninka kale gedgedin hu thawbkii aw yandura ama uusan iska fiirin ilayhi maradii intii ka ah. wanahaa wuxuu nahiyey nabigu sala allahu calayhi wasalam can ilmulaamasati, mufaacaladu laysat calaa baabiha, isla taabsasho maahanoo labada dhinac ka imaanaysa sidii mufaacaladu ahaan jirtay. hadda waxa weeye waa taabasho qofka mushtariga ahaa taabanaya, markuu maradii taabtana saasay uga gadan tahay. wanahaa wuxuu nahiyey nabigu sala allahu calayhi wasalam can ilmulaamasati taabsashadii, walmulaamasatu mulaamasaduna lamsu thawbi, maradii taabashadeedii weeye, laa yanduru xaaluusan fiirinaynin qofka taabanayaahi ilayhi ila thawb marada intii ka ah. weli waxaan ku jirnaa albuyuuc almanhiyu canha, beecyaashii la nahiyey. can abi hurayrata xadiidka labaad ee baabka, can abi hurayra abu hurayra xaggiisa waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana rasuula allahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam qaal wuxuu yidhi laa talaqow labadii ta ayaa midi go-an tahay, wamaa bita-in ibtidii qad yuqtasar fiihi calaa taa ka tabayanu lcibar, tabayanu oo kale weye. laa tatalaqow yuu macnuhu noqonayaa, laa talaqow ha ka horteginina arrukbaana safarayda ha ka horteginina, walaa yabic yuusan gadin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa korkiisa, walaa tanaajashuu haysfallisinina, walaa yabic yuusan u iibinin xaadirun mid magaalo joogihi libaadin mid reer baadiyaa yuusan wax u gadin, walaa tusaruu hagaaxinina alghanama ariga, waman qofkii ibtaaca gatahaa arigii la gaaxiyey fahuwa qofku bikhayri nadarayni labada eegmo kan khayrka badan buu ku sugan yahay, bacda an yaxlubahaa markuu ariga liso kadib. in radiya hadduu ku raadi noqdo mushtarigu haa arigii lasoo gaaxiyey amsakahaa sidiisuu ku haysanaya, wa in sakhidahaa hadduu u caroodayna raddahaa arigiibuu
celinayaa wa saacan saacna waa celinayaa suuskaasoo min tamrin timir ah. wa fii lafdin wawarada fii lafdin lafdi dhexdii waxaa ku soo arooray wahuwa midka wax iibsado mushtariga ahina bilkhiyaari mutalabisun mid ku dheehan weye bilkhiyaari khiyaar 3 saddex. xadiidkan wuxuu ka kooban yahay 5 jumlo ayuu ka kooban yahay. jumlada koobaad laa talaqow arrukbaan macnaheedu waxa weeye mathal dad ayaa safray oo safarey ah intaysan magaaladii soo gelin ayaa waxaa ka hortegaya qof. marka magaalada hadday soo galaan waxay faa'iidi lahaayeen sicirka qiimuhu xooluhu ay joogaan oo badeecada ay wadaan ay joogto ayay ogaan lahaayeen. marka intii aysan sicirkii ogaan oo aysan magaaladii soo gelin yaa meel dhexe qof uga hortegay markaasuu ka iibsaday mataacdii ama alaabtii ay wadeen. marka arintaas meesha waxa ku jira waxa weeye waa darar dhib waxa weeye qofkii baayic ah ugu jira oo ah macnuhu yahay inuusan maaragtay ogeyn sicirka sicrul yawm la yiraahdo oo suuqu maanta marayo si uu ugu iibsado badeecadiisa sicirkaas. marka talaqi baa la yiraahdaa talaqi ayaa la yiraahdaa. laba mowduuca ku tacalluqda. mowduuca koobaad waxa weeye hadduu qofku og yahay in la nahiyey ka hortagga safareyda ee isagoo og uu ka hortago waa xaraam weeye. midda labaadna beecaasi ma asaxaya mase ma asaxayo. ayamada qaar waxay leeyihiin waa asaxaya sida imaamu shaafici oo kale oo wuxuu leeyahay nahyigu nafsul caqdi u laaban maayo maadaama nafsul caqdi uusan u laabanaynin arkaantii beeca waxba maaragtay ka nuqsaamin maayo. ee dhibka meesha ku jirahay waxa weeye arinta meesha ku jirtahay qofkii maaragtay baayica ahaa ayaa dhib ugu jira arrinkaasina nafsul baaci u laaban maayo. sidaa darteed baaci waa saxiixuu leeyahay qofkaasina waa dambaabaya. ayimada kalena waxay leeyihiin annahyu lilfasaad nahyigu fasaad uu faa'iideynayaa maadaama la nahiyey beecaasu asixi maayo. sidaas ayimada qaarna leeyihiin. labada qayboodba waxay isku raacsan yihiin inaan la ogolayn in laga hortago safareyda inta ay ka ogaanayaan inta magaalada yimaadaan sicrul yawm. jumlada koobaad macnaheedu sidaas weeye. jumlada labaad walaa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiin yuusan qaarka kale ka dul iibin. laba macno ayay leedahay. mar waxaa la yidhaahdaa albaycu cala albayc marna waxaa la yidhaahdaa ashiraau cala ashiraa labadooduna waa isku xugum. albaycu calaa baycin macnaheedu waxa weeye qof baa qof kale badeeco ka gatay. markuu badeecadii ka iibsaday midkii ahay mushtariga oo soo iibsaday hantidan suuqa ka soo qaatay yaa qof kale u imaanaya. qofkii kale wuxuu ku leeyahay beecan ka bax badeecadan lagaa iibiyey badeeca ka fiican oo ka raqiisanaan kaa iibinayahay ka bax beeca ka bax. mushtarigii buu ku leeyahay kii wax soo iibsaday. waxaa dhibku ugu jiraa markaas qofkii baayic ahay oo hantidan qiimahan laga siiyey ayaa dhib ugu jira. ashiraau cala shiraana waxa weeye wuxuu ku leeyahay baayicii u imaanaya meeshuu suuradii hore mushtariga u yimid keyrkiibaa wuxuu u imaanayaa baayicii markaasuu wuxuu leeyahay badeecadan meequu kaa siiyey qofku wuxuu uga siiyey qadarkaas ka badan anaa kaa siinahay ka bax beecii ka bax. kaasna sidaas weeye. ashiraac cala shiraa la yiraahdaa. albaycu cala albayc iyo ashiraac cala shiraa labadooduba xugum ahaan waa soo gelayaan xugum ahaan lama ogola mar haddii caqdigu dhaco in maaragtay dib loogu soo qof kale uu ugu yimaado qofkii baayicay ama mushtarigii oo beeci uu sidaas ku fasaado lama ogola. walaa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin. dadka muslimiinta ah xuquuqda ay isku leeyihiin ayay ka mid tahay tixgelinta la istixgelinayo dhinaca mucaamalaadka marka beeca wax la iibsanayo. jumlada saddexaad walaa tanaajashuu haysfallisinina sidaasaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. tanaajushku wuxuu ka mid yahay beecyaasha la nahiyey sida xadiidkanba ku cad. sababtuna waxa weeye dararka ku jira. najsigu waxa weeye qof baa badeeco suuqa keentay. markuu badeecadii suuqa keentay midaan rabin inuu iibsado
laakiin raba badeecadaas qiimo badan inay goyda inta yimaado wuxuu leeyahay intaasan gaare wuxuu rabaa qofkii codkaas maqlay inuu wax ku daro wuxuu u joogaa badeecadan inay qiimo badan gaarto laakiin inuu wax iibsado ma rabo najsiga macnihiisu sidaas way waa fallis qofku uu fallisayo in xoolahaas ama hantidaas lacag badan xoolo badan laga baxsho كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة najsiga asal ahaan waxaa la yidhahdaa kicinta markaad wax kicinaysid marka qofka raba inuu wax iibsado ayaad himadiisa kicinaysaa codkaagaad maqashiinaysaa badeecadan meesha joogta intaasaan gaarayaad leedahay qofkii marka u baahna wuxuu leeyahay ana intaasaan gaaray waa kusii daray haddana waa kusii daray ilaa wax badan aad gaarsiisid ulajeedadaaduna ma ahan inaad wax iibsatid najsiyaa la yidhaahdaa lama ogola sharciga islaamka xaggiisa lama ogola jumlada afaraad walaa yabic xaadirun libaadin xadiidka dambena waan ku tegi doonaa xadiidu bni cabaasin radia allaahu canhumaa isagoo fasiraya yaan ku tegi doonaa xaadir iyo baadin qof maaragtay reer miyi ah oo baadiye ka yimid baadinka waxaa loo wadaa qofka reer miyiga ah ayaa badeeca suuqa keenanaya midkii beledida iyo magaalada jooga inta u tago wuxuu leeyahay badeecadan aniga ii dhiib gurigan agtaydan dhigayaa tartiiban u gadayaa qiimo aan suuqu jooginin aan ku iibinayaa sidaas uu leeyahay ujeedadiisuna waxa ay tahay inuu kan laftiisa oo maaragtay oo xoolo badan uga bixiyo marka darara ku sugan dararku uu ugu sugan yahay qofkan reer baadiyaha ah xoolaha keentay suuqa in xoolihiisu qiimo badan u gooyaan waa u fiican tahay laakiin ahlu beledka ku dhibtoonaya dararkaas dartiis yaa loo diiday jumlada shanaad oo ugu dambaysa walaa tusaru lghanam ariga hagaaxinina neefka irmaan ayaad waxaad rabtaa in loo maleeyo inuu caano badan yahay markaasaad soo gaaxinaysaa isagoo caanihii ku taagan yihiin oo caano ka muuqdaana suuqa keenaysaa si loo maleeyo inuu yahay neef caano badan oo qofkii iibsadahay oo caano ka dhergayo tasriya la yiraahdaa geela iyo ariga farqi ma kala lahan laakiin xadiidkan wuxuu ku soo arooray ariga riwaayo kale oo riwaayatu saxiixayna ayaa jirta oo al-ibila wal ghanama leh marka ma kala duwana inkastoo ariga riwaayadan ay ku soo aroortay tasriyadu wax khilaafa ma lahan inay xaraam tahay maxaa yeelay khiyaana ku jirta qofka mushtariga oo iibsanaya ayaa khiyaano ugu jirta nahyiguna wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu og yahay inaan la ogoleen khadiicada inay xaraam tahay inuu u qariyo neefka aan maaragtay lahayn caanaha badan in la moodsiiyo qofkii inuu caano badan leeyahay shanta jumlo oo xadiidku ka kooban yahay sidaas wey عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة حقي سوى حلقة وري أن رسول الله إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم قال وحير رسولك إلهي لا تلقوا هكهرتك إننا الركبان سفريدا ولا يبيع يوسني من بعضكم غاركين على بيع بعض غارك كالبيع سكركيس ولا تناجشوا حسب لسننا ولا يبيع يوسن وحوي بن حاضر مد مقال جوجه اللي باد متر البادية ولا تصروا هجاحننا الغنم أرجه ومن غفكي ابتاع إبسدها أرجي لجاحيي فهو يسوق مركو أوجاده إن لسوق جاحية بخير النظرين لوذا في رمتك خير كبضنا يوكسو جايه وسقك على دورنا إياه بعد أن يحلبها أرجي مركو لسوق كذب أوجاده إن لسوق جاحيي إن رضي هذوك راضي النقضه مشتركها أرجي لسوق جاحية أمسكها سيسوكو هاي سنية وإن سخطها هذو عراضه إن لقو خياني أو كعراضنا ردوا علينيها غنمكي قفكي الهاي وعلينيا وصاعا سوس نوى علينيا ساعة من تمر تمرة مركا أرجي علينتيسي ما دام الله سي يا علينتيسي وحال لقو دري جبري قاس هلك سوس أو تمرتا وفي اللفظ وحاكو صاروري وهو إساقنا متك مشتركاه متلبس وحو كله هي بالخيار خيار إنه باعس ماركتي سيسو كوضه
iyo inuu beecii fasakho 3 maalmood iyo khiyaar ayuu leeyahay iyo riwaayaadka qaarkood ku soo arooray. حديث صدحات عن عبد الله وحال قوري عبد الله حقيس ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله إلى رسولك صلى الله عليه وسلم نهى وحور نهيي عن بيع حبال الحبلة وريد كذا كاس بيع عيسى أيو نهيي نهى عن بيع حبال الحبلة وريد كذا كاس قديتان كيس أيو نهيي وكان وحونا أها بيع حبل الحبلة بيعا بيع بوها بيعاسو يتبايعه أي يكون بيع تمان ويوحكوك لقتان أهل الجاهلية جاهلي أهل كيس إسلام ككوري وكان الرجل ننكو وحوها إسلام ككور يبتاع إنو يبسد الجزورة نفك جيلة أيو يبسنيا إلى أن تنتج إلى أي كردشو الناقة هشو ثم تنتج هدنا أي كردشو التي في بطنها مدي أو يبني على شيء ذا كسقنات قيل وحال يري إنه شأنية كان وحوها إنه شخص قده كان وحوها نينكو يبيع إنو إيبيو الشارفة نفك دغة هش الدغضة شارف وهي شارفة الكبيرة ومدوين المسنة الدأداه بنتاج الجنين أرجيفك وحاول لدونه أيوكو إبني الذي جنينك في بطن ناقته هشيس على شيء كسقنا بيع عننا وبيع كله ومنهي حبل الحبلة أي لير هذا حبل الحبلة لما قابوا ليه هو لقوت المامو قاب ككوباد وحوي neef kan geela jooga ayuu wuxuu leeyahay hashaani marka ay rinto oo ay dhasho oo nirigta ay dhashay hadana rinto oo nirigtaas ay dhasho ayaan ka gaday wa albay'u ila ajalin majhulin inay nirig wado oo nirig dhali doonto iyo nirigtaas lafteedu inay wax sii dhali doonto ilaahay baa og subhanahu wa ta'ala bay'a noocaas oo kala oo la yiraahdo albay'u ila ajalin majhul waa lagu fasiraa waxa kale lagu fasiraa nataajun nataaj waxa la yiraahdo nataajun nataaj neef kan riman halooshiisa ilmayga ku jira markii oo inta dhasho rimo yaa bay'aas lagu xujeyn lagu xiraya oo la leeyahay waxa laga gaday markii neefkan intuu dhasho hadana uu ilmigii uu dhalay uu wax sii dhalo نتاج النتاج يا كاسنا ليراهده اسغنا waxa loo diidaya waa bay'u macduum shay macduuma oo aan mawjuud baahayn oo la gadayo way marka jaahiligi islaamka ka hor ayaa lagu beectami jiray way jaahiligi islaamka ka hor ayaa lagu beectami jiray marka beecaasi waa xaraam asaguna عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله إلى رسولك صلى الله عليه وسلم نهى وحونه عن بيع حبال الحبالة وريد كذا لقديتان كيسة وكان وحوناها باعاسي بيعا بيع بوها بيعاسو يتبايعه أي وحكوك لقطان ويكون بيع تمان أهل الجاهلية جاهلي أهل كيسة إسلام ماذا كهر وكان الرجل ننكو وحوها إسلام ماذا كهر يبتاعه إنه يبسني الجزورة نافك جيله إلى أن تنتج وفعل لفظ سنة مجهوليه معنيه سنة مسميه إلى أن تجن أو كلوي إلى أن تنتج إلى أي كدرشو الناقة هشو ثم مركز كجدل تنتج هذا ندرشو التي في بطنها هش على شيء ذو كسقنات غير وحال يدي غاب كاس مركي لقاه لي إنه ننكو كان وحوها يبيع مد إيبيه الشارفة نفك الدقة هشا الدقضة شارف هشا الدقضة الناقة المسنوي سقات الماما وهي شارفكو الكبيرة مد دأدة وي المسنة دأدة بنتاج الجنين أرجيفك المقا أولالي دونه يلقو يبنيا الذي أرجيفك في بطن ناقته هشيسة على شيء ذاكو سقنا مركب عاس
وبيع حبل الحبلة أصلا لما أقولا. حديث كأفراد بابك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر حق سوى حلقة وريا أن رسول الله إله رسولك صلى الله عليه وسلم نهى وحونه عن بيع الثمرة مرها لقد تانكودا حتى انتي بنهي يبدو وكم موقضه صلاحها مرها هقاقودو. نهى وحبيع عسكر يبي النبي صلى الله عليه وسلم وكنهي البائع قفك وحسكي بينيا يوال مشتري كان سوء بسنية. هل كان وبيع كلي منهي نهي قاسي وليبا نهي تحريم ويه أكثر الأمة سداس أيه قبان ان سببتنا وحيتهي فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات مرها كويا له بيرتا انت ايسنان بسلان قديتان كودا لما اقولا سببتنا وحيتهي وحاسور تقلا ان مصائبتا كودا عدا بيره اي كودا عدو انت ايسنان بسلان مريهي وادنا قضي قفك مركا مشترقاها ومرها كايب سدي حوله سيباد قادتي ويحاتكو قادتينا وبابين معنيه وحوية إن هذا بدل أساقي أتكبدلتي أي سنهين مركا ديبكو ugu jira qofka mushtariga dartiisa loo diiday miraha lama ogola in la gado ilaa ay ka bislaadaan bisalka waa tagi doonaa xadiidka dambe fasiraya عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نهى وحونه عن بيع الثمرة مرها لقديتان كودا حتى انتي يبدو وكموضه صلاح الثمرة مرها هقاقود نهى وحوك النهي باع سنبي صلى الله عليه وسلم البائع قفك يسكي بينيا اي والمشتري كان سوء بسنية مرها حديث كشنات عن أنس بن مالك وحلق وري رضي الله عنه أن رسول الله إله رسولك صلى الله عليه وسلم نهى وحونه عن بيع الثمار مرها لقديتان كودا قديتان كس حقي سأيو نهي حتى انتي تزهي الثمار مره أي كم مدبوبان وأي مدبك بسيلك كياشان حتى تزهي إلى كم مدبوبان مره قيل وحال يري وما تزهي وما معنى تزهي حتى تزهي هذا معناه دوا محي قال مركز يري حتى تحمر إلى جدودته ومره أي جدودان مركز جدودك وأستانتي بسيلك قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يجورا إن منع الله إلهي هدو ديدو الثمرة مرها ومرها سيسن بسلان أدنى أدعيرين كجديد مرهنا يسن بسلان وإلهي بسيل ديدو بما محيبو يستحلك حلال سنة يا أحدكم غفكين مال أخيه ولا الكمال كيس إلا مريه بلايا مصيبة كود عضي عاها كود عضي أفا كود عضي أفوين كبيرها كود قفكي مركا مع الفن لقا قضي مرها مركا قفكي هاي مشتركة oo lacagta dhiibay ayaa meel cidla ku soo dhacaya xoolihiisa waxa lagu qaadanaya wax waj aan xalaal ahayn sida darteed lama ogola miraha gaditaankooda ilaa ay bislaadaan Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nahaa wuxuu nahiyay can bay'i thimari miraha gaditaankooda xaqiisa hatta tuzhiya ila miruhu kamidabooban qila waxa la yiri wama tuzhiya wama macna tuzhiya macnaheedu waa maxay قال وحيري حتى تحمر إلى جدوتان وي قال وحيري نبي صلى الله عليه وسلم رأيت يجورن إن منع الله هدي إلهي ديد الثمرة مرها بما محيبه يستحل كحل ليس يا أحدكم غفكين مال أخيه ولا الكمال كيسة حديث كالحادي عشر كوجودا بيه عن عبد الله حق سوي حلقوري ابن عباس رضي الله عنهما قال وحيري عبد الله بن عباس نهى وحونه رسول الله إله رسولك صلى الله عليه وسلم أن تتلقى إن لغا هرتقو الركبان سفر ريدة وأن يبيع إنه قضاء أيو نهيي حاضر من مقال جوجه اللي باد متر البادية إنه وحو قضاء قال وحير راوي حديثك ابن عباس كوريي فقلت وحنكويري لابن عباس عبد الله بن عباس ما قوله ما معنى قوله نبي قول كيس معنيه سوا محي يري حاضر لباد يوسن وحقد
mid belediyihi mid badawiya qaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu cabaas macnihiisu waxa weeye laa yakuunu xaadirku yousan ahaan kaanada isimkeeda halkaasaad u celinaysaa laa yakuunu yousan ahaanin xaadirku sim saaran dalaal yousan u noqon lahu baadiga midka ah yousan u noqonin dalaal midka xaadirka ah macnaha la diidayo yaa intaasa weeye dhibka ugu sugan ummadda islaamka oo ahlu beledka dartiisaa loo diiday arrinkaas عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله إلى رسولك سبحانه صلى الله عليه وسلم أن تتلقى إن لغا هرتقو الركبان سفريده وأن يبيع ينو يبيو حاضر من مقال جوجه اللي باد مثل الباديين وحو يبيو قال وحو يري راوي تابعي هاي فقلت وحنكو لابن عباس عبد الله بن عباس ما قوله قول كيس معنيه سوى ما هي حاضر لباد ويري نبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وحو يري لا يكون ما أهانا يهوي لا يكون ما أهانا هو حاضركو سمسارا دلال وأهان ما له بادقي كي أهايو البادية والله سبحانه وتعالى أعلم